وأهلا سلامي يا إخواني وأخواتي. waxaan rabaa bal halkan erayna isla eegno iyo sidaan u adeegsano iyo waxaan u malayno iyo sida maaragtay dad ay u adeegsadaan ilaa waqti dheer. erayga mucaarad ayaad maqashaa maalin la arko markay taa siyaasadda Soomaaliyeed mucaarad 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 oo beryahan dambanaba ay noqotay in mucaaradnimadii ay noqoto wax lagu tartamo. horta erayga mucaarad waa mucaarada waa carabi weeyaan. laakiin annaga waan adeegsanaa waana ku dhaqannaa waxaan u aragnaa inay tahay wax laakiin hadda afafka qalaad oo kale sida ingiriiska opposition ayaa la yidhaahdaa iyo waddamo badan oo kale waxaana laga wadaa waa arrin siyaasadeed meeshan loo adeegsadaa. waxaana laga wadaa koox sharciyeysan oo baarlamaanka xubno ku leh oo dadku soo doorteen oo sharciyan ah oo sharci ah oo maamulka markaas haya madaxtinimada ka soo horjeeda. waxay uga soo horjeedana maahan inay hubaysan tahay dagaal ku jiraan laakiin annaga mucaaradanimadanada iyo kuwa isku sheega mucaaradka iyagoon erey af Soomaaliya u hayn waxa weeye waxaa lagu tilmaami karaa fallaago. waa fallaago waa gooni goosad. ma ogtihiin erayga fallaago ama erayga mucaarad adduunyadu fallaaga markuu qofku yahay in rebel ingiriiska lagu yidhaahdo oo yahay qof hubaysan oo dagaalamaya oo dawladda aan ogolayn la dagaalamaya wax kasta ay samays ka soo horjeeda. marka waa in la kala fahmaa mucaaradnimada siyaasadda oo sharciga oo qanuuniga iyo mucaaradada dembiga. kuwa maanta dalka mucaaradka sheegta hadday kuwa xamar jooga awood maanta ay heli karaan xabad ayay qaada lahaayeen dadkana way lay lahaayeen dawladdana waa dili lahaayeen. waad aragteen kuwa maamul goboleedyada kuwa badan sida Jubbaland, Puntland iyo Somaliland qoryay wataan waa dilayaan dadka iska badaaya waa xirayaan dadka shacabka ayay xirayaan. macnaheedu waa afduub waa gooni goosad waa fallaago. fallaagana sharcigeedu muxuu yahay waa in gacan lagu qabtaa waa in la qabtaa waa in sharciga la mariyaa waa in la xirxiraa waa in dadka laga fadhiisiyaa. sidaa darteed waxaan anigu jeclaan lahay hadda waxaan jeclaan lahay in la kala saaro afkana ay bartaan Soomaalidu afkooda. erayga mucaarad fallaago waan haynaa erayga fallaago waan haynaa laakiin erayga mucaaradka oo sharciga eray aan carabi ahayn ama ingiriis aan ahayn waa inaan helnaa oo maaragtay aan wax ku sharciyeysano. wax walba waa inay sharci ku dhisan yihiin. waa inaan helnaa eray aan adeegsano. fallaago waa naqaanaa dabcan waad garanaysaan oo qof kasta oo waa qof hubaysan oo dagaalamaya oo ka soo horjeeda dawladnimadii ama inuu xukunkaas ka tuurto xukunka xoog uga tuurto rab waa fallaago. laakiin erayga mucaarad sida hadda af ingiriis loo yidhaha opposition waa in la helaa. wax kasta inaan dharaandhirinno ayaa loo baahan yahay. wax kasta inaan fikirno ayaa loo baahan yahay. wax walba maskax inaan u yeelano ayaa loo baahan yahay. wax walba inay cilmi ku dhisan yihiin ayaa loo baahan yahay. maan iska orod macnaha dawladda haddaad ku mucaaran tahay waa inaad qaladaad ka sheegtaa waa inaad horumar ka shaqaysaa waa inaad dadka soo jiidataa waa inaad wax ka fiican maamulkaas keentaa waa in adiga lagu doortaa saasna aad kursi ku qabatid. markaasna waxaa yeelanaysaa opposition kale. anugu ma dhihi karo eraygan macnaha fallaago waa dembi. sidaa darteed hadda markaan fiiriyo oo eego mucaaradka saxda macnaha
afka Soomaaliga ilaa hadda maan helin kuwa nabad iyo nolol la dhihi kara maanta xamar jooga dawladda si mucaaradayaan si sharciyan ay ku socdaan saasay tahay laakiin hatta baarlamaanka xubnay ku leeyihiin oo waati laga guuleystay dawladnimada laakiin markay tartamaan hadda ama ay ku guuleystaan ama laga guuleysto ay xubnihii u soo galay 100 hadday u soo gasho 150 hadday u soo gasho baarlamaankii ugu jirayaan shuruucda wax ka dejinayaan waxaysan ayagu markaas aysan arkayn wanaag inay dalka u tahay ay ka hor imaanayaan oo diidayaan waxbay wax ka ansixinayaan waa sidaas saas weeye mucaaradnimadu laakiin anigoo shakhsiga haddaan qabiil dabada la galo iraado anuu qabiil reer hebel aan ahay mucaarad ma tihi waxaa tahay waa fawdo wey iyo fallaago inta qabiilka dabada gashato oo wiilashaada soo hubayso macawisley aad samaysato aad tiraado waa dagaalama waa fallaago fallaagana waa in la laayo waay wax kala maahan in laga qabto dalka iyo dadka weeyaan marka Soomaaliyay aan fakarno garaadkanaga aan kobcino ereygaana ha loo helo magac maxaana mucaarad af carabi waaye eraf Soomaaliya ku saxan dadkan hala sharciyeeyo hala bixiyo qofka mucaaradkaana waa inuu sharciyan loo sharciyeeyaa aniga hadda mucaaradana aniga mucaaradana sababta dawladda maanta joogta anu ma taageersanin dadogtiin waa ka soo horjeedaa laakiin shakhsiyan iyo gooni ahaan iyo uma nacbi oo madaxweynuhu markuu wax wanaagsan samaynayo waa taageersanahay dawladda markuu wax wanaagsan samaynayso waa ku tahaniideynaya laakiin markii qaladaad ku socotana waan tilmaamaya macnaheedu maaha inaan qof xun ah anu waa jecelahay dawladdeeda hadduu xasan sheekh 10 sano joogaana dan kale hayn kaliya waxaan rabaa in dadku waxaan rabaa inay dantooda aysan fiirsan ay danta dalka iyo horumarkiisa iyo dawladnimada ay u danqanayaan maahan inay iyagu dantooda fiirsanayaan haddii qabiilkayga uusan xukumaynin ma taageersanin haddii maaragtay aniga kooxdayda aysan meesha haysanin waa ka soo horjeedaa marka aniga aan meesha aan wax ku haysto dawladda aan wax ku haysto jaanis ama adeerkayga uu madax ka yahay waa taageeraya waxaas caqli maahan dawladnimana maahan maskaxna maahan marka ereygan mucaarad af carabi waaye af Soomaali sax aan soo helno oon kan fallaagadan aan sheegay ama shufto ama fallaago ama ereyadaas aan naqaan aan ahayn waa idin salaam